استاجين ما قلت والرب الكعبه نيك جروبك دميه ادغو والرب الكعبه ان كداي هوي دارو ددك قفك دنيرada ka dhig adigu ahaa maskaraatigan Soomaaliya ay ku qoran tahay ee calanka saana shanta D5 intee ka keentay yaa gaaleenayo Soomaali ليو صومالي ولا سيقنا قبيل كلان دير سما جيرو قبيل غميست ما جيرو وان اسمري ويني ميشن عدو وا كجيرو دلنيردان عدوغودا وان نمكا اندها دوبان ورنمكا اندها دوبان اديga fartam ku fiiqaysa dhalanyaro annaga ku dagaalamayaa horeyna waa ku fiiqaya waa la dagaalamaya arinkan KDS horta xagga iska dhig ma fahantay aniga xagga iska dhig ilka casoo murmine bal aniga adigu intaynu wada hadalno oo aynu doodno waxa ii sheegtaa diyaar waxaan u ahay inta xagga aqoonteeni hore ka hadlaysid iyo waxaan dhan iska daysid war walaalow maxaynu ku wada shaqeynaa ii sheeg diyaar baan kugu laahay inaan taladaada tusaalahaga baqaato inta kale ina adeer waxaan ku dhaay dhigeysi waxaan ku wada shaqeyn karnaa war ina adeer adiga Soomaali gaar ahaan waliba xamar adiga tag waxaan ku leeyahay dhigeyso dhibaato xudunta Soomaali waa xamar baa tagaysaa haddii daacad ka tahay ina adeer dhalinyaro Soomaaliyeed isku keen annaga ku caawinayna lacag waxa la waxarta qarsh annaga dhiibeen waa kuwee joogan qurquriyo kulliyo war ina adeer group suubi annaga ku taageerino laakiin adoo geed saaran magac dad suubiyay oo adiga dadku dumiyay aad kow ka tahay ani haydin ma aqaanin weligay ma arkin dhaaranin magacaanu u dumiye hadda u dhisaya marka way su'aasha biig joogto waxa ka dhacsan ba waxa weeye kacdoonka dhalinta Soomaaliya hore uma arkin baa tiri yar labadiina adiga ma dhahdee kacdoonka dhalinta Soomaaliya hore ma arkin Soomaalida dheen adiga ilka casiyo sharmo ma maqlaysan maada reyaal horta wax marna meesha ma yaalo magacan KDS na waa kii fashilmay horta qurba kama shaqeyn karo been